dhammaan bahda garsoorka iyo marti sharafta kale waxaan aad iyo aad ugu hambaleynayaa shirkan 5 sano ay ku qorsheeyeen hawlahooda ee maanta qabsanaya waa soo dhaweynaya waan ku hambaleynayaa garsoorku iyo cadaaladdu muhiimadda ay leedahay qof walba aad ugu ogyahay af kasta oo ku hadlo iyo meel kasta oo joogo ilaga quraankeena in badan sheegay cadaaladda waxaa dhaqankeena iyo gabayasheena ka buuxa cadaaladdu siday muhiim u tahay muhiimadda cadaaladda ku dheerayn maayo oo idinka idin sharxi maayo oo dadkii cadaaladda hayeebaati waxaan ogsoonahay oon aad dareensanahay qof ahaan iyo dowlad ahaan iyo xisbi ahaan iyo qaran ahaanba muhiimadda ay leedahay cadaaladda iyo garsoorka iyo hawsha iyo dhibta iyo oo maaragtay adkaysiga ay u qabaan dadka maanta oo aynu joogno ka shaqeeya cadaaladda Somaliland dhibta ay qabaan ee waqtiga leh dheer ay shaqeeyaan ee dhaqaale yarida leh ee mararka qaarkood amniga leh ee mararka qaarkood caafimaadka leh ee haddana ay ugu dhabar adeegaan inay garsoorka ilaaliyaan waa ogsoonahay waana ku bogaadinayna waana uga mahadnaqaynaa intii aan joognay xukuumad ahaan waa ka dadaalay wixii tabaraa inaanu taageero bahda cadaaladda iyo garsoorka wixii dhaqaale loo hayo sanadka soo socdana insha allahu hadda waxaa lagu jiraa miisaaniyaddii waxaan ku dadaali doonaa inaan sad dheeraad ah oo intii hore ka badan intii la awoodi karo aan ugu daroon u kordhino bahda cadaaladda waxaanu ku dadaalay in kor loo qaado aqoonta iyo dhaqaalaha iyo tashiilaadka shaqada iyo amniga waaxda garsoorka gaar ahaan dadka u kala garsoora ee xaakimiinta ah oo dhibaatooyin badan qaba intaa waxaan ku dhaafi wixii aan qabanahay cadaaladda oo kooban waxaynu ognahay bulshadeenu Somaliland qof waloo hadlaabo wuxuu ka hadlaa cadaalad qof walba wuxuu cadaalad baa doonaya marka la xukumo xukku dhamaadana qofkii aan wuxuu doonayay loo xukumo wuxuu ku cawdaa xaqdarra ay ku dhacday oo cadaalad baa waayay haddaba bulshada Somaliland waxaan leeyahay haddii aynu doonayno cadaalad wanaagsan haddii aynu doonayno garsoore xaq ah oo degdeg ah oo karti leh haddaynu doonayno booliis iyo ciidamo amni oo habeenkii gurigaaga iyo markaad galabtii caraabaysaba ammaan aad ku hesho haddii aynu doonayno in caafimaad wanaagsan oo ku adeega aada hesho haddaad doonayso inaad hesho dowlad wanaagsan oo waxaad u baahan tahay kuu qabata oo caalamkana haybad ku hele dhammaan waxay ku xidhan tahay qofka Somaliland inuu isagu intaa fuliyo isagay ku xidhan tahay qofka hadduu qofka Somaliland ku kalsoon yahay oo aroortiida maxaad qabtaa xil baa ku saaran ugu yaraan dhagaxa gurigaaga hor yaalla ka qaad ugu yaraan waalidka ayuu xanuunsanaya booqo ama wuxuu qabo oo qofku xil isa saaray iskula kalsoonaado inuu yahay qofku wax qabanaya waxay ila tahay inaynu horumar gaarayno waayo markuu qofka xilkas noqdo uu shaqeeyo uu adkaysto ka mas'uulka ka sarreeyana saasuu noqonaya deetana dowladdu saasay noqonaysa taariikhda ugu fiirso dowladahan hore u maray ee aynu jamanayno ama aynu jecelahay inaynu gaadhno dhaqaalahooda caafimaadkooda amnigooda horta dhammaantood waxay waxaa ka dhiseen dhulkeena ka dhibaato badan oo laga yaabo sanadkii inay 3 bilood aad cidaaraan oo baraf yahay waxay soo mareen dhibaatooyin iyo dagaallo kuweyn ka waaweyn kuwa soo maray ma jiro dalalka hore u maray Mareykan Canada Ingiriis Japan mid aan dhulka la siiyay idan gebigiisa dhulka la siiyay qaar baan nuclear lagu fitay Japan oo kale haddana 10 sano ka bacdi adduunyada wuxuu filayay iyo wada raaco marka inagu dadkeenu waa dad hawlkara
Soomaaliga oo waliba maskax furan marka challenge ka helaan oo dhiiran laakiin muddooyin dambe ilaa 20 sano waxay nagu dhacay kalsoonida laga luntay qofku ma aaminsan inuu isugu xuduudo gaari karo haddaan cid garab qabo u fiirso haddii qof wax ka loo xataa ka soo qado xabad imka iyo jirka Soomaalidu baa ka soo meel kasta garaatay haddii magaalada qashinku tuuma inay inta istaagaan yiraahdaan waxaan u baahanahay hay-ado naga caawiya inay qashink laga qaadaan waxaad maqlaysaa islaam beerteed dhex joogta oo dhan beertii waan u taagweyna waxaan u baahanahay hay-ado naga caawiya beerta waxaad maqlaysaa ardaygii oo laga yaaba inuu brilliant yahay oo hadduu yar shaqeeya tooga oo u baahan caaqil ama suldaan ama wasiir adeerkii oo imtixaanka u raaca oo la gala soo baaskareeya ma xitaa shaqeynta way dhaafto garabeeshinku marka dadka Soomaaliya ka mid marka kiiska gala maxkamadda iyo booliiska qofku wuxuu u baahan yahay inuu xaakimka yaqaan askariga booliiska ayaa yaqaan tusaale siinaya haweeneyda aniga taliya booliiska waxaan kormeeray sabiyada qaar ka mid ah sagaalkii meelaha goorda baahan maxaa soo toostay meel yar oo ay jexjexan dadka arkaan nin maxaa ku saaqayay marka muu oranin madaxweyne waxay masuul mujaahid muusoo mujaahid hebel baan ahay ina fadal baa cadaalad darro igu xidhay ina fadal yeeg taagay kula saaro soo ku xidha qaraado mujaahid maxaa dhacay hebel isaga weydii maxaa dhacay waxa maana sanadina shil yar oo gaari baan galay وعقليتي marka waxaan u baahanahay qaranku inuu cadaalada dhisto waxay ku xiran tahay sida uu shacabku kalsoonida isugu hayo waxa u baahanaya inaan jirin ama uu naadirin qof kiis ka galay maxkamadda aaminsan inuu cadaalad helayo si kastoo lagu cadaalad furo waana sidar waanu Soomaalidu waxay jirtay gartaada banaanka lagu soo akhristaa tagara waxa loo jiray gartii ma qaatay هذا يقول بناية وحنا هنا كاجي كان لو قرقاد odayo waa ina kaagi waa laga haday war ma qaatay uu garti hada uu banaayay imka waxa maraysa odayo ka soo reeray oo magaalada joogo banaanka cadaalad darrada xukumo xaakimka reerkoodii reerkayga bar hor istirayo waxa iga jeedaado halkaas waxa maray marka bulshadu waxaan u raadayna waxa looga baahan yahay hadii doonayaan dawladdu wanaagsan oo adeegto qofka ku xirantay haduu doonayo cadaalad wanaagsan qofka ku xirantay deetana waxay ku xirantay qoyska cadaaladdu waxay soo galaysaa haddii la doonayo in dhaqaalaha horu marwaan cadaalad hela oo u garqaado shirkadii haddii la doonayo bulsho wanaagsan oo caafimaad qabto hooyo carruurta korisiya ama carruurta koriya cadaalad baa loo baahan yahay qoyska isqabto oo u soo galay haddii la doonayo dadka la difaac cadaalad baa loo baahan yahay tallaabada la qaado haddii loo baahan yahay waxa la rabaa qarankeena inuu dhiso cadaalad oo ay ku dhisaan dhaqaalahooda oo ay ku dhisaan waqtigooda oo ay ku dhisaan kalsoonidooda oo ay ku dhisaan iimaanka ay ku qabaan oo ay ku dhisaan inay isgarab taagaan oo ilaaliyaan nabadgelyada marka bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay ashxaas 100 qof 200 qof oo cadaalad ka shaqeeya oo ku dhibaataysan ku heli mayno horumarka cadaalad waxaan ku helaynaa inaga oo qof waliba maskaxda galiyo inuu qaybtiisa ka qaato cadaalad isdeed xukuumadda maxaa saaran xukuumadda madaxweynaha ugu sareeya madaxweynaha ummaddu waxay haysaa maamuus badan iyo qadarin badan oo loo sacabiyaa waa loo kacaa markuu soo galay ruuxaas waa loo dhigaa maxaa laga rabaa isaga maxaa furay inuu in badan qof walba in ka badan isagu shaqeeyo oo in ka badan uu dadaalo shicibku wuxuu doonayo inuu helo laakiin waxaa laga rabaa dadkiina inay markuu wax dadaala sameeyaan la qabtaan markuu qaldan yahay si qumar u sheegaan bini'aadam weyn madaxweynuhu wasiirku waa bini'aadam xaakimka waa bini'aadam shanku waa bini'aadam waa qaldan kara khaladkiina nasteexadu ilaahay baa sheegay marna fadeexad ka dhigi kartaa marna nasteexad ka dhigi kartaa qofku waa bini'aadam hadduu khata abago inta uu soo fariistay inaad u kala tiriso oo wax aan wahayn iyo wuxuu leeyahay iyo waxa uu jeedinba aad daba u qabato waxa ka raadayna barada qodobka extra ka qalad baa ka dhacay waa la saxay qof kasta oo mas'uul oo xilaya isaga ugu nugul dadka isaga ugu furaysan isaga ugu caban inta wuxuu sheegaya ummadana bahdo wax qalad ka soo baxay marka hadii qofku uu waa bini'aadam tugtoro kara qof kasta haddii inankaaga yar qaldamo ee guriga jooga miyaad ulayn oo waxa xalay wada hado dhigid bad wada qaba
isaga waxaad u sheegay daahida iyo raagiddu waxa ilaahay ururka qabtaad u sheegay si uu qaato dawladdu waxay ka soo kale xaakimku waxay ka soo kale kabaaraya waa bani aadam hadduu qaldamo naseexba wanaagsan waxa shirarka loo qabanaya ee kharashka loo bixinayo ee la suugayo waxa weeye qalaadka la soo waa soo koobaya waxa leeyahay dadka waxbarashada qoladii bahda cadaaladda xaaladii ay ka soo bilowday 19 ilaa maanta oo dadka waxbarashada goobjoog waa ogahay xaakimadii waxay ku gooyaan iyo police wali tahay qabaan waxaan ogahay inaan wali arag xaakim ama chief justice ama xeerariyadu ama qofkii gareeqaana oo ka taagtay xoolaha shaqadaas ay leedahay waa dhifiyada caalamka laakiin magaciya maamuus ayuu ka helaa aakhirna cadaalad markuu galo waxa tirada ugu horeeya in cadaalad fuliyay isagoo xukunka haya oo xaakima ilaahay waxaan ka jeedaa bahdeena barsoorku inay noqoto taa tirada ugu horeysa qaranku way hawsha qabataan xukuumaha way ku kala taagan aad iyo aad u mahadsantihiin